halkan waxaan ku soo gaaray procedure baan soo maray aad u dheer oo hadba marxalad marka iyada soo mariyay oo marxaladda hadba aan ka gudbaynay oo business plan aan soo qoranay iyo kulli business idea iyaga aan magaranaysaa cadeynayno oo muujinaynay waxa asal u ahaa idea kulli marka aan haynay oo businesskayga mid existing ayuu ahaa hore u jiray kaasoo doonayna marka inaan ballaarin ku sameeyno ideahaas aanu doonayna inaan kulli ka faa'iideyno si marka iyada bulshada Soomaaliyeed oo kale marka ay faa'iidada u gaarto oo camimto waxaan marka rajaynayaa insha Allah guul wanaagsan baan rajaynayaa insha Allah haddii aan guuleysanina waan ku qanacsanahay magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullahi Ciise Saalax waxaan ahay maamulaha shirkadda ayaan ahay New Vision insha Allah ta'ala haddii Ilaahay raali ka noqdo daqiiqadaha la isiiyay aadka u kooban iska hadal badnahay aad moodo inay ugu yar yihiin insha Allah waxaan soo koobi doonaa business plan kan soo koobi doonaa insha Allah presentation ka executive summary New Vision waxa la asaasay horta waa company IT-ga ka ganacsada ICT oo dhan ayuu iibiyaa xilli aanu furniture kan iibin jirnay way jirtay laakiin hadda waan iska daynay asbaab marka kulli timid darteed waxa la asaasay 2005 ayaa la asaasay company-gan wuxuu shaqaynayay muddo dhan 12 sano ayuu IT fieldiga ka shaqaynaya ku jiray ugu qanco waxa aanu kulli soo bandhigno waxaan codsanaynay waxay ahayd 20,000 oo maalgelin ah qaababkan u rabnana kulli hoos bay ku qoran tahay insha Allah oo aad arki doontaan xilliga aan doonayno inaan ku soo celinana waa 3 sano gudahood bishii marka loo qaybiyo waxay noqon doontaa $600 bil walba inaan soo celino company-gan badeecad ayuu ka ganacsadaa ayuu iibiyaa adeegna waa u bixiyaa service labadaba uu ka shaqeeyaa haddaan badeecadda ku hormaro company-ga sales buu sameeyaa oo badeecad buu iibiyaa badeecadda uu iibiyo waxaa ka mid ah PC computers baa ka mid ah notebooks baa ka mid ah laptopyada printers baa ka mid ah scanners koobiyada utilitieski power supply-yada UPS-yada alaabta halka aan ku sheegay oo dhan waa uu ka ganacsadaa waa uu iibiyaa competition waa jira oo muddo dambeysay waliba dhibaatooyinka IT-ga ku soo kordhay waxa ka mid ah dukaan iibinaya telefono inuu laptopyo keeno uu ka faa'iido wuxuu ka faa'iideyay laptopka wax la mid ah iyagana halka dhibaato badan baa in badan ka soo gaarto haday hal laptop uu ka xumaado inay khasaaro waayaan aad u fara badan oo waxay muddo dheer faa'iideyeen qoliyaha waxaanu xal u helay anagu warranty baan bixinaa in ugu duwanay kambaniyada magaalada customerska oo dhan waa ogyiin waayo ugu dambeyn waxaanu soo codsanay expected donation waxa weeye lacagta geeska ku qoran 20,000 baan codsanay oo maalgelina wixina lagu maalgelin lahaana halkan ayay ku qoran yihiin iyaga oo faahfaahsan alaabtaasan doonayna in loo soo iibiyo Dubai oo kalena looga soo gado alaabta waxaan u doonaynaa sidaan tilmaamay inaan location-ka malaha waan ka soo booday oo aanu shirkadu deganayd marka waxaanu u doonaynaa inaanu alaabtaas dukaan cusub baranji cusub oo aanu isleenahay meel istiraatiiji ay ku yaalaa inaanu ku maalgelino annagu waxaan haysanaa lacag dhan 10,000 oo aanu doonaynaa inaan uga qayb galno lacagta السلام عليكم magacaygu waa Cabdifataax waxaan ka socdaa microdab dahabshiil waxa weeyaan dhowr su'aalood baan doonayaa in maxay ahayd aan ka weydiiyo waxaad xustay percentageska of ownership-ka ama lahaanshaha in aad adigu leedahay 25% waxaad xustay in New Vision uu yahay 25% kaasi aanu ahayn groupka guud ama company-ga weyn waxa weeyaan qof 40 buu lahaa qofna 35 buu lahaa ama 25 malaynay inuu ahaa qof kale 35 iyo 40 ayuu ahaa qolada kale waxa weeyaan percentage-ka ay New Vision ku leeyihiin way saan u fahmay waa si fiican marka loan-kan marka hadii ay suuragal noqoto oo aad ku guuleysato inuu kaba soo qaadnay inaad ku guuleysatay xadiga waxa weeyaan waa 20,000 xadiga loan-kani 10,000 waxa weeyaan idinka ayaa maxay ahayd ku daraya 10,000 qaabkaad ugu darteen waa percentage intee ma sidaad percentage-ka ownership-ka aad u kala lahaydeenoo 25% iyo 35 iyo 40 baad ugu kala darteen mise waxa weeyaan waa si aggregate ba 10,000 ugu darteen loan-kan 20,000 ahna percentage caynkee baad u kala leedahay aan su'aasha dambe aan ku hormare
وأماه دكان كقاعدنا شركة مخصصين ستان دمبه تان دمبه لكن expansion وبزنس عادي لكن وغيب نيو فيشن كتر سنويا عادي cabdullaahi waa su-aashan ku weydiinaya waxa weeye kow laba su-aalood baan ku weydiinayaa hortan aan ku horeeye maadaama aad sheegtay in profitkiina hoos u dhacay oo aan dhaqaalo wanaagsanayn waddanka overviewgaaga guud iyo analysiskaad samaysay iyo dee adoo ku base garaynaya ganacsigaaga iyo siduu u socday iyo profitku samayn jiray marka loo eego sanadadii hore sanadkan aad hoos buu u dhaco intan 6 bilood baan ku samayn jirnay 22 kun marka from this perspective waxaad arkaysaa inuu declining uu jiro marketku decline uu sii galayo waxay doonaa ku keenaan waxa laga yaabaa economical factors inay jiraan convergence kale ay jiraan supplier convergence kale inuu jiro marka adoo arkaya in profitkaaga iyo ganacsigaaga uu hoos u socdo maxaa kugu kalifayay in expansion aad samayso oo aad new business ama new branch aad furto because of iyadu wax kaaga baahantahay qarash kale waxay kaaga baahantahay in xataa profitkaaga uu yaraado ayaa dhici karta oo culays uu ku keeno ganacsigaaga nimaka jira marka maxaa kugu kalif sababtu waa maxay aad marka u arkayso in baahi ay jirto iyadoo suuqi uu hoos dhac uu ku yimi horta taayna ka jawaab marka su'aasha kale aan ku weydiin doono ما شاء الله ما هو سؤال في عن ويان وأي مدنتي إن لسويدي حقيقة أنا جو دريمينا إنه هو صدق عاجري مركب كوباد حنا نرت خبرات في عن أو لبا فيلد جانا خبرات في عن بنقول لنا هاي إن بدن وحنا دريمي كرينا إسبدل ذي يمي يحيابها كياني يقاب كي مادين إن بدن وكم ذا تاو حنا نقص واحد بحذي إن وحنا دوذا كم ذا أنا إنه دريمي كرينا يهلك يدوذا سجرتو حقيقة ذي وحنا إسلامنا هاي أنو تارجت قرينا إن بدن إسلامنا هاي عدد فرتان مهردان يرى أصوب مركز كوباد ومهرد ركوبان أنو دونين إن بدن إن أنو وقفا إيدينو ضد كدا يرتا أنو دونين أنو وقفا إيدينو حقيقة ذي مركز هالك وحنا وجود فرصة أنو إسلامنا أرضية الجامعة هذا حديقتها فرصة أي هالك كصوبي كريسان كوهلي كريسان وكوكس بكريسان ما شاء الله وحنا نكسب بين رجينا حقيقة ذي برسنتيشن كي كان سوجيدي waxaan ilaahay ka rajaynayaa in boqolkiiba boqol lagu qanaciyo waan filayaa in lagu qanacsan yahay wallahi khayr Allah siiyo nimankaas niman aad u halgamay bay ahaayeen wayna garab galeen tababar bayna siiyeen xalay 12 habeenimo la shaqeynayeen iyagoo waliba niyad wanaag noo muujinayay inaan guuleysano aad ayay noo caawiyeen inta iyaga awoodooda ay way qabteen waan uga mahadnaqaynaa dadaalka ay sameeyeen No.